kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa Warleyds Media fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube kan kula nahay subscribe saar sidoo kale barta Facebook kan kula nahay u share garay saaxiibada qodobada maanta aad ku maqli doonto warkeenana waxaa ka mid ah xaalad adag oo khilaaf iyo xilka qaadis sababtay oo ka taagan maamulka Galmudug maxay tahay xaaladaasi warka ayaad uga bogan doontaan dagaal maanta ka dhacay magaalada Muqdisho yaa qaaday yaase lagu qaaday dagaalkaasi xogtiisa ayaanu idiin haynaa saddex kooxood oo iska kaashanaya guddiga amniga doorashooyinka iyadana waanu idiin haynaa beesha caalamka iyo madaxda qaranka federaalka iyo maamul goboleedyada oo maanta ku kulmay magaalada Muqdisho maxay ka wada hadleen in ka badan 42,000 oo arday oo maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadayso ardayda dhameysay dugsiga sare ee dalka Soomaaliya ayagana xog ayaanu idinkaga haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka Warleyds Media ku soo dhawaada haddii aad ku cusubtaana bartan subscribe saar saaxiibadana u gudbi watahay daawadayaal qodobadaasi aan idiin sheegay oo faahfaahsan ku soo dhawaada aynu ka bilaabano maamulka Galmudug waxaa ka taagan xaalad khilaaf oo dhalisay in xilka laga qaado wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug arrintan ayaa ka dhalatay golaha deegaanka ee magaalada Balanballe kadib markii dadka deegaankaasi oo kaashanaya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug oo ka soo jeeda halkaasi ay go'aansadeen in ay sameeyaan golaha deegaanka magaalada Balanballe arrintan ayaa waxaa ka dhalatay buuq aad u ballaaran kaasi oo dadka qaarkood ay ku sheegeen in aysan cadaalad ahayn sida loo sameeyay golaha deegaanka beel gooni ahna ay aad u badsatay maamulka Galmudug oo khilaafka ku soo baxay ayaa dalbaday in arrintaasi dib loo habeeyo hase ahaatee dadka deegaanka oo kaashanaya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug ayaa la sheegay inaysan arrintaasi dheg jalaq u siinin ugu dambeystii maanta ayaa dowlad goboleedka Galmudug waxa ay dhammaan sheegtay in golaha deegaanada ee laga dhisayo magaalooyinka degmooyinka maamulka Galmudug dhammaantood la joojinayo muddo 90 cisho ah kadibna dib loo bilaabi doono si dadka deegaanka wada degan dib u heshiisiin looga sameeyo waxay isla fahamsan yihiin loo anbaqaado waxaa la sheegay arrintaasi inuu si cad uga soo horjeestay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug taasi oo ugu dambeystii sababtay khilaaf aad u ballaaran kusmaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa la sheegay in xilka qaadis uu ku sameeyay wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel warqadda xilka looga qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug ayaa waxa ay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug waxaana ku saxiixnaa madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo hadda isku meel ay xilka ka wada hayaan iska wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudugna ay isxigaan xilka qaadistan ayaa daba socota xiisad ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka sida aan hore isugu sheegnaba dhismaha golaha deegaanka Balanballe ayaa waxaa ka dhalatay colaad dhanka qabiilka ah waxaana Galmudug hakad arrintaasi darteed ay u gelisay si aysan uga sii dhalan gacan ka hadal daran oo dadka deegaanka dhexmara lana xalli waayo watahay daawadayaal Warleyds Media ayaad naga daawanaysaan weli fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube kan kula nahay subscribe saar saaxiibadana u gudbi dagaal ayaa la sheegay maanta inuu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho haddaba dagaalkan uu u dhaxeeyay yaase bilaabay wararka laga helayo Muqdisho gudaheeda waxa ay sheegayaan inay israasaaseen dhexmartay ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya ciidamadan oo kala shakiyay ayaa israasaaseyntu bilaabatay markii dhinac ka mid ah uu isku dayay inuu rasaas uu kor ugu riday ku furto jid cariiri ahaa agagaarka isgoyska warshada caanaha taasi oo keentay in dhinacii kale oo ka agdhow halkaasi uu rasaas kale ugu jawaabo waxaa la xaqiijiyay inuu qof shacab ah ku dhintay halka mid kale oo shacabana uu dhaawac soo gaaray waxaana dhinac ka mid ah la sheegay inay ahaayeen ciidamo ka amar qaata sarkaal lagu magacaabo Liibaan Maxamed Yuusuf Liibaan madaxweyne oo ka mid ah saraakiisha ciidamada la magac baxay badbaado qaran ciidamada la socday sarkaalkan ayaa la sheegay inay u qaateen rasaasta jidka lagu furayay mid iyaga loola dan leeyahay oo lagu soo weeraray sidaas darteedna ay ku jawaabeen rasaas kale ciidamada rasaasta markii hore ridana ayaguna ay iska caabiyeen sidaasna uu ku dhacay dagaalka dhexmaray labada ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya
iska horimaadyada noocan ayaan ahayn kuwii ugu horreeyay ee magaalada muqdisho ka dhaca, inta badanna waxaa isaga horyimaada ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waralis Media ayaad weli nagala socotaan, markana saddex dhinac ayaa iska kaashan doonta sugidda amniga waa maamulka doorashooyinka. waxaa maanta kulan yeeshay teendhada afisyoonina ku yeeshay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ay weheliyaan beesha caalamka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir gudoomiye kulanka, waxaana wararku ay sheegayaan in looga hadlay sidii loo fulin lahaa heshiiskii ay Khamiistii Muqdisho ku kala saxiixdeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. sidoo kale ayaa waxaa looga hadlay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa amniga doorashooyinkana la isaga kaanshan lahaa, isla markaana amniga loogu wareeji lahaa saddex dhinac oo kala ah ciidamada booliska ee ka socda dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ciidamo ka socda. Rooble ayaa beesha caalamka uga warramay heshiiskii ay wada saxiixdeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, waxa ayna Rooble iyo madaxda maamul goboleedyadu si wadajir ah uga codsadeen beesha caalamka inay fududeyso lacagaha doorashada ee xaggeeda laga sugayo. wakiilka beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa bogaadiyay heshiiskii uu horumarka ka sameeyay ra-iisul wasaare Rooble Khamiistii, kaasi oo laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka, iyagoo ballan qaaday sida ay uga go'an tahay taageeridda dhaqan gelinta heshiiska doorashooyinka ee la saxiixday. doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ku baxaysa lacag aad u fara badan, waxaana 10 milyan oo ka mid ah laga sugayaa qaramada midoobay, UK, Mareykanka iyo midowga Yurub. Khamiistii la soo dhaafay ayaa ra-iisul wasaare Rooble madaxda shanta dowlad goboleed gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ay si wadajir ah u saxiixeen heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo in muddo ah lala soo rafanayay. waa tahay weli Waralis Media ayaa nagala socotaa, markana arrin siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa la sheegay inay si cad uga soo horjeesteen heshiiskii ay gaareen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan qodobkii quseeyay arrimaha doorashooyinka ee xildhibaanada laga soo dooranayo gobolka Gedo. qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Gedo ayaa la sheegay inay kasoo horjeesteen qodobada qaar lagu heshiiyey ee ka soo baxay kulankii golaha. siyaasiyiinta qaar ee kasoo jeeda gobolka Gedo oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay dhaliileen in heshiiskaasi fulintiisa ay qusayso madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la sheegay in ay u aqoonsan yihiin madaxweyne sharci ah oo maamulka Jubbaland, iyaguna ay sheegeen in aysan u aqoonsanin heshiiska qaybtiisa ku saabsan Jubbaland. waan qaadacsannahay sida aad ogtihiin dhismihii ugu dambeeyay ee Jubbaland waxaa isku caleema saaray ninka hadda madaxweynaha ka ah dowladda Jubbaland, waxa ayna ogolaatay 2 sano ayay dowladda dhexe u ogolaatay, arrintaasna annaga ma waafaqsanin ay yiraahdeen siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo ee shirka yeeshay. waa tahay daawadayaal, qodobada ugu dambeeyay ee warkeena ayaanu sii soo gaarnay. in ka badan 42,000 oo arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sanad walba qaado. imtixaankan oo 29 bisha May oo maanta ku beegan laga bilaabay Soomaaliya guud ahaanteeda ayaa ardayda gasha waxaa la rajeynayaa in dhibco fiican ay u soo baxaan, kaasi oo dadka dhammaanteed iyo waalidiintuba ay aad u dalbanayaan inay ka fiicnaadaan ardaydii ka horeysay oo kuwa badan oo ka mid ah ay dhaceen. Waralis Media ayaa naga daawanayseen, fadlan haddii aad ku cusubtahay bartan YouTube-ka subscribe saar, saaxiibadeeda u gudbi, markastana ha moogaane. intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warkeena maanta.